runtii maanta waxay ahayd maalin aan kormeer ku sameynayay oo runtii aan u dhabagelayno u diyaar garowga imtixaanaadka qaranka 2019-2020 maanta waxyaalaha ugu muhiimsan waxay ahayd inaan hubino nidaam cusub oo imtixaanaadka oo aan rabnay inaan haddii Ilaahay yiraahdo sanadkan soo socdo lagu bilaabo sida la socotaanba waxaan waayadan sameeyeen isbedelo xagga horumarinta waxyaha ah iyo wasaaradda guud ahaan iyo in la helo nidaam imtixaan oo runtii ka turjuma waqtiga hadda la joogo casriga ah waaga hore waxaan isticmaali jirnay in imtixaanaadka iyo diiwaangelintooda qaab system oo manual ama gacan ku samaysan loo sameeyo laakiin laga soo bilaabo hadda waxaan bilownay in imtixaankii uu noqdo sida hadda inta badanba uu yahay bas qaab oo mataqaanaa computerized ah sanadkan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan qiyaasaynaa ama diyaar garoob imtixaanka loo diiwaangelin doona 37,000 arday haddii Ilaahay yiraahdo waxaa qorshaysan imtixaanka inuu dhaco isbuuca koowaad bisha shanaad sanadkan gudihiisa waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in uu ka doonaado sanadkii hore maxaa yeelay tirada hadda fiirisid aad ay u badan tahay waxa keenay wax kala ma aha iskuuladii iyo nidaamka imtixaanaadka iyo kulli ummadda Soomaaliyeed runtii kalsooni badan ku soo qabayaan nidaamka dawliga ee socda anoo fursadan ka faa'iideysanahay waxaan rabaa markaan u mahad celiyo agaasimaha imtixaanaadka qaranka iyo dhammaan guud ahaan shaqaalaha iyo nidaamkan cusub oo lagu soo kordhiyay oo aan isleeyahay wax badan ayuu ka tiri doonaa culayskii wasaaradda haystay waxa uu ka caawin doonaa wax badan in aysan khaldamin diiwaangelinta ardayda maxaa yeelay markii hadda la diiwaangeliyo oo nidaamka sida kormeerayaasha iyo dadka macallimiinta iyo maamulayaasha iyo wasaaradda kormeerka ay sameysay macluumaadkii yaalo iskuulada markii la soo wareejiyay oo lagu soo wareejiyay ayadoo maataqaana la xaqiijinayo macluumaadkaas inuu yahay saxda ahaa kadibna lagu wareejiyay systemka waxay noqonaysaa marka macluumaad maalinta systemka laga bilaabo ilaa shahaada la daabacayo fududeyn doono inaysan wax kala gelin haddii ahaan lahayd roll numberska ardayda la siinayo iyo diiwaangelintooda waxaan rabaa fursadda inaan kaga faa'iideysto in ummadda Soomaaliyeed aan ugu baaqo guud ahaan inay caawiyaan ardayda Soomaaliyeed sanadka imtixaanka u fadhiisan doonta haddii Ilaahay yiraahdo sida ay si lamida maamul dawlad goboleedyada iyo dalada waxbarashada iyo dhammaan bahda waxbarashada waxaan u soo jeedinayaa iyagana sida ay si lamida inay garab istaagaan loona diyaar garoobo imtixaanka sanadkan maadaama runtii tirada ardayda imtixaanaadka oo fadhiisanaya iyo tiro aad u badan oo aan rajaynayna inay tiradooda wax badan ka badnaan doonaan taasna ay keeni doonto culays runtii aad u badan waxaan rajaynaynaa ka wasaarad ahaan oo diyaar garowgaan hore ugu bilownay in aan u fududeyno ardayda tasiilaad walba loo sameyn karo loo sameeyo sidii imtixaanka ay u gudan lahaayeen sida ugu wanaagsan oo runtii oo qof kasta oo mataqaana imtixaan galaya uu mudan yahay runtii waxay ahayd kormeerkan mid ugu weeriyay agaasimaha guud oo aan u dhabagalaynay inaan xaqiijino ballanqaadyadii aan sameeyno ahayd marka dambaysa in horumarin lagu sameeyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo guud ahaanba in la xaqiijiyo himilooyinka iyo arag iyo mataqaanaa higsiga ardayga Soomaaliyeed oo inuu horumar ka gaaro ama uu ku tilaabsado waxa uu intaas soo baranayay qorshaha iyo maanta runtii shirka jaraa'id ama barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa kaliya inaan xaqiijiyo in habsan socodkii imtixaanaadka qaranka uu bilowday oo aan rajaynayn haddii Ilaahay waxa ka dambeeyo in mataqaanaa si dhow aan mataqaanaa ula socon doono madaxda wasaaradana ay ka go'an tahay mar walba in loo fududeeyo ama mar walba laga fakaro ardayga Soomaaliyeed iyo meesha uu mustaqbalkiisa ku dambeyn doono taas ayaana keenaysa mar walba inaan maalin iyo habeen u taagnaano inaan xaqiijino nidaamyada iyo qorshayaasha wax u taray ardayda in mar walba la horumariyo taasina qayb